xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade ayaa xukuumadda ku dhaliilay inay diyaar u ahayn in deegaanada Buuhoodle ay ka qabsoomaan doorashooyin iyo diiwaangeliyaasha codbixiyaasha waa sidoo hadalka u dhigay sidana uu xogayay Maxamed Cabdilaahi Urcade ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa. xisbiga wadani waxa ku celinayaa oo mar labaad cadeynaya sidii saakaan ku soo saarnay oo saxaafadeedka arinta Buuhoodle iyo diiwaangelinta ayaan jecelahay inaan ummadda si qoraala iyo si afaba aan ugu tabino. waxa muddo dheer la sugayay in dalka ka dhacdo diiwaangelin dalka reer Soomaaliland oo dhanna ay xaqooga helaan ay diiwaangelinta wada galaan. waxaanu wada ognahay in reer Soomaaliland maanta diyaar u yahay meel kasta oo joogaba inuu diiwaangelinta galo. nasiib darro xukuumaddii 6 sanadood jirtay 6 sanadood dalka ka talinaysay hal tallaabo hore uma qaadin oo dhulkii aanay doorashadu ka dhici jirin si ay uga dhacdo diiwaangelintani oo xaq ahayd oo ummadaas ay xaq u lahayd wax tallaabo kama qaadin. hadda waxa la gelayaa diiwaangelintii waxa la isku raacnay in la galo diiwaangelintii gobolka Togdheer iyadoo gobol loo gelayo. Buuhoodle waxa ka mid tahay gobolka Togdheer. waxa dadka reer Buuhoodle diyaar u yihiin hoos iyo si walba iyo warbaahin iyo meel walba ka sheegeen in ummadaas ay xaqooga uga helaan Soomaaliland ay diiwaangelinta diyaar u yihiin sida walaaladooda kaleba ay u galayaan inay u galaan. nasiib darrada taagan waxa weeye xukuumadda oo ilaa maanta aan diyaar u ahayn inay Buuhoodle ka rido oo ay gobolkii ay raacsanayd ee Togdheer ayagoo wada socda ay wada galaan diiwaangelinta. waxaanu ku guubaabinaynaa oo aanu leenahay xukuumadda waa xil saaran waa waajib saaran waa xaq muwaadiniinta reer Buuhoodle ay leeyihiin in diiwaangelinta halkooga loogu geeyo sida Burco uga dhacayso ama goobaha Togdheer kale uga dhacaysana ay Buuhoodle uga dhacdo. ummadaasna waxaanu leenahay xaqooga xukuumaddu si dhaba ha u siiso ha kala hawlgasho sida ay xaqooga u heli lahaayeen. muddo dheerna runtii arintaa waa laga hadlayay laakiin waxaad moodaa xukuumadda maanta jirta inaanay u jeedin. aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaanu ku celcelinaynaa in ummadda reer Buuhoodle xaqa ay leedahay Burco ay leedahay in la siiyo oo diiwaangelinta ay codsanayaan ee ay diyaarka u yihiin xukuumadda Soomaaliland ay u ogolaato. dhinaca kale Maxamed Cabdilaahi Urcade wuxuu fariin u diray dadka deegaanka Buuhoodle waxaanu yiri shacabka waxaan farayaa inay shacabka horta Ilaahay baa faroo way garteen dantoodii diyaarna way u yihiin inay diiwaangelintii galaan inay ummadoodii wax la qabsadaan waa u diyaar. xukuumadda wax ka dhibayn xukuumadda waxaan ku codsanaynaa fariimayne inay waajibka leedahay ee muwaadiniinta kale u qabanayso. si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyay waxay cabashooyin kala duwan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka ka soo yeedhayeen bulshada deegaanada Somaliland iyo walibana siyaasiyiinta kala duwan. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.